xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Xudun odayaasha dhaqanka degmada Awrbogays guddiga abaaraha ee degmada Awrbogays ee gobolka Sool ayaa si wadajir ah uga hadlay biyo dhaan ay ka wadeen degmada Awrbogays ee gobolka Sool xaaladda biyo la'aaneed ee ka jirta deegaanka iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yiraahdeen sidan wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah halkan waxaanu ku qabanay saxaafad bulshada reer Awrbogaysed ay kaga hadlayso dhibaatooyinka abaarta ah ee dhulka saameysay anigu waxaan ahay xubin ka mid ah guddida Awrbogaysed ku hadlaya afka deegaanka iyo afka guddidaba waxtarkii lagu qaybiyay gobolka Sool ee biyo dhaamiska ahaa ee regionka gobolka loo qaybiyay waxaana soo gaadhay 40 lowd oo ayna soo gaarsiiyeen xildhibaanada degmada laba xubnood oo ka mid ah biyahaasi wayna soo gaadheen waanu ku dhex jirnaa meeshan waxa degan ama ku soo guuray markii horena beel dad badan baa deganaa mujtamac fara badan haddana waxa ku soo hayaamay ummad fara badan oo ka soo guurtay ilaa 4 gobol ama 5 gobol biyihii la keenay halkan waxaanu u qaybinay 6 magaalo oo magaaladan Awrbogays la yiraahdo 5 hoos yimaada iyo magaalo madaxdooda ah iyo ummadda degan ee reer miyiga ah baanu u qaybinay markii aanu dadka tira koob ku sameynay biyahaasi waxay ku filaadeen soo guurtadii 6 magaalo iyo dadkii hore deegaanka u ahaa waxba kama gaadhin soo guurtadii bay ku filaadeen madaxda gobolka ee uu badha saabku hogaaminayo waa soo dhaweynaynaa waxtarkii ay qaybiyeen wuuna soo gaadhay golaha deegaanka ee Xudun baa noo keenay waxaanu ka codsanaynaa gobolka uu hogaaminayo badha saabku iyo guddida abaaraha ee gobolka in ay waxtarka deegaankan la siinayo noo kordhiso sababtoo ah waxaanu nahay laba degmo oo Xudun iyo Awrbogays isku hoos jira oo baaxad weyn dalka ay hoos yimaada ay tahay labada degmo isma hoos gali karaan isku sadna lama siin karo waxaanu madaxda gobolka iyo ilaa heer qaran oo madaxweynaha golaha wasiirada dhammaan xukuumadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa inaanu laba degmo nahay Awrbogays iyo Xudun nahay waxtarka yagiina isku hoos jiro waxaanu leenahay laba degmo iskuma hoos jiri karto ummad fara badan oo soo guurtayna miisaan ugu soo kordhay weey waliba dadka aanu wuxuu doonaynaa dadka deegaankan waa ladan yahay guryihiisa bay degan yihiin cidda tabaalaysan aanu wuxuu doonaynaa wixii naloo keenay wax hore iyo waxan dambena aanu siinay waa dadka soo guurtada waxaanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ka codsanaynaa iyo guddida heer qaran iyo guddida gobolka ee badha saabku hogaaminayo laba degmaanu nahay iskuma hoos jiri karno laba degmo waxa gobolka yimaada laba degmo ha loogu qaybiyo degmo walba sadkeeda ha la siiyo waa ka baxay odayaasha kala wixii ka dhiman ku daraya waa in salaamaya waxaanu ku hadlaynaa waxaanu nahay reer Awrbogaysed wax miisaan leh oo dhibaato baa dunida ka dhacay waa abaar wixii kaleba waxbay dhaafaan abaartu waxba ma dhaafto dad iyo dunyo midna 5 gobol waa laga soo guuray mudug ilaa cayn ilaa mudug baa laga soo guuray dadkii deganaan halkuu isugu yimid markii horena Awrbogays waxay ahayd deg gobol bay la ciidahayd oo ummadda taal gobol bay la ciidahayd ee degmo waa ka facweynay ummadda u timi ku soo guurtay iyo wixii joogay baa isku dul fuulay waxa weeye waxaanu sheegaynaa maamulka Soomaaliland madaxweynaheeda iyo xildhibaanadeeda waxa ugu sii daran biyaha yaro riiga baa waxaas ka cabaan oo biyo ah yar hadduu galo waa istaagaya waxayna ugu ballan qaadeen kuwii yimi in la keeno ceel loo sameeyo mashiin loo sameeyo oo ceel loo hagaajiyo bay ku ballan qaadeen ma hayno
waxaanu sheegaynaa degmada gobolka iyo Soomaaliland madaxweynaheeda iyo xildhibaanadeeda waxaanu sheegaynaa abaaraha kan dhacay wixii ay ugu tala galeen ummadda halkaa isugu timi awrbogayseed ee tobanka gobolka ka cid badan ee ilaa xiriya soo kusamiri wixii lagu caawin lahaa ilaahay baa oo bini'aadam hay oo Soomaaliland ku caawin lahaa qodobka halka kana awrbogays iyo xudun annaga waxaan soo gaaray waa foostooyinka yaryar dadkii soo guurtada ahaa uma ay gaarin shiriikan 20 litir uma gaarin soo guurtadii markii loo qaybiyay cid kale daaba dad magaalo daa maatooyin daa waxa weeye waxaan u sheegaynaa adduunyada marba maamulka rag baa haya arinta adag waa in maamulka Soomaaliland isweydiiso madaxweyne xildhibaano waayeel kale oo gudi ah arinka adag baa jooga ya معبر صابك وحي مدحك Soomaaliland معبر صاب مدحويني xildhibaano inay xidis ka saaraan arinta caynkaas oo la wada arkay maantiro wadna la arkay waxa hoganaya waxaan u sheegaynaa wixii kale Ilaahay baa wax bixiya laakiin inay xidis saaraan baan u sheegaynaa oo isku raacsanahay dadka magaalada awrbogays soo guurto iyo deegaanba baan isku raacsanahay inaan u sheegno way isku raacnaa waa ka shirray arinta waqtiga adag baan la isbartaa waqtiga adag baa dhacay arinta aanu idin sheegaynaa waa arinta caynkaas idina waa ogtihiin wax yaqaan wax looma sheego hawshaas aad joogta nabadgelya joogta oo dib la iskuma hayo ee waa dibta abaartu keentay ee nabadgelya joogta intaan kaga baxay anigu waa inta والسلام يا صحافة بان هلكن ku qabanay awrbogays degmada awrbogays sidii hore odayaashii ka hadlayeen way sheegeen biyihiina soo gaaray iyo degmada dalkan miisaankiisa aagan awrbogayseed wixii kale waxaanu salaamanaa gobolka Sool oo biyo horena keenay kuwana noo keenay xildhibaanada degmada xudun ka tirsan oo na soo gaarsiiyay biyahaas aad iyo aad baan u salaamanaa barasaabka gobolka Sool Cabdikariin Xaashi Diiriye oo area tan u ah barasaab wuu yimi wuuna sii arkay dhibaatada jirta iyo madaxdii la socotayba ilaa madaxweyne ku xigeen way mareen meeshan dad fara badan baa isugu yimi waxaan uun ka hadlanaa marka gobolka wax lagu qaybiyo degmada xudun wixii la siiyo degma ahaan in la yiraahdo awrbogaysna iyo dhul badan oo hoos yimaada wax looga gooyo baanu ka hadlanaa inaan qaadi karin oo ay wixii wax ka miisaan weeyeen waayo iyada tan qura 10 tuulo hoos yimaada hareeraha ka xigaan awrbogays miisaanka hayaanka iyo miisaan horena waa farbadnay dadkeedu waxaanu ka codsananaa gudida gobolka Sool ee abaaraha ee barasaabku u gudoominayo in wixii gaar waxa iyagii laga dhigo wax tara dadka kan loo qoondeeyo waxaanu kaloo ka hadlanaa ceel qura ka soconaya oo biyo yar ceelkaasi waa ceel hadda wuxuu shaqeynaya dhowr sano wuu biyo yar yahay waxaanu codsanay oo hore uga hadalay ceel in matoor la keeno matoorkii waa khatar buu ku jiraa waa ballanqaadkaasina waa jiray matoorka dhowr meeloodna waanu kaga hadalay in matoor degdegana lala soo gaadho emergency baanu ka codsananaa barasaabka gobolka Sool madaxda kale isuduwaha biyaha wasiirka biyaha ee Soomaaliland dawladda Soomaaliland madaxweynaha wixii warka dhageystaaba inay emergency-ga nala soo gaaraan matoor cusub oo matoorkii waa naga jilcay ummadiina hadeer hameen iyo maalin lama damiyo dhowr jeer horena waanu ku hadalay inta aan ku kordhinaya inta weeye tan nabadgelyadu way fiican tahay oo wax dhibaato kama jiraan
dadkaas soo guurtadaana wixii adigu biyo loo helay waa la siiyey iyo wixii kalaba sidaasaan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh biyihii laba goor waa laga keenay gobolka sool marna dhowr iyo 10 bilood bay ahayd marna 40 bilood bay ahaayeen halqiga meesha yaala sida odayaashu sheegeen wuu ka badan yahay waa isdhex gobol weeye dadka meesha jooga hiiraan mudug nugaal sool buuhoodle cayn cid maqani ma jirto waa la og yahay madaxda Soomaaliland way martay dhulka way arkay safar bay ku martay meesha laba ceel baa ahaa ceel waxa saaran solar ceelkii biyaha badnaa ceelkii yarba oo beeyar motorku noo saaraa solarkii uu shaqayn waayay habeenkii iyo qaboorayku noo shaqayn waayay kan ceelka kale motorku noo saaran yahay motorkuna waa daalay waana ceel beeyar ceelka aanu motorka u doonayna waa ceelka biyaha leh ee solarku saaran yahay horena waa laydin lascaanood iyo aw meel walba laga sheego waa nolo ku ballan qaado waftiga maantooda waa noogu ballan qaaday wuu nagu raagay waxaanu codsanaynaa motorka in degdeg nolo ku keenyo bambooyinkiisii tan abaaraha ilaahay baa biin kara laakiin dadka nagala jooga waa dad baahan oo jilicsan dhulfo ka yimi nin waliba xoolo yar wato caataa wuxuu ka cuna waayay haraadka ugu daran biyaha hore la keenay ee dhowr iyo 50 foosta kale booyada kale horeeyay ma dhadhamin deegaanka awrbays ma dhadhamin iyagii baan u qaybin kari weyn 10kii qoys waxay heshay 10 foosto geelasha ka daran haraad la rag geelasha haraad baa laayay xadiradoodii haddii la idan kadeeyay anagu Soomaaliland aan gobolka Sool ka tirsanaano laakiin labada gobol marti baan u nahay waayo waxaan haysta ummad culus oo fara badan waxaana la joogaa labada gobol dhexdoodii baa deegaanka soo galo abaartu keentay dadka mid qura xilkama haysto labada gobolba waxaan u sheegaynaa ummadda islaamka ee abaartu keentay ee labada gobol dhexdooda keentay hadday barasaabada tahay hadday qolada wasaaradda biyaha tahay hadday madaxtooyada tahay hadday wasiirka arrimaha gudaha tahay in wax laga qabto midda kale awrbogays kun iyo 2016 baa degme la siiyey gurigii degmada waa noo dhisay saldhigii beleeska waa noo dhisay waa xidhan yihiin talii beleesku waa qoran yahay maayirkii waa qoran yahay waxa hor taagan waanu yaabanahay 2016 markii waftiga ballaaran ee Soomaaliland noo timi ee afayeenka madaxweynuhu watay wuxuuna weydiiyay gobolkaatii muuna weydiiyay waanu sheegay gobolkaanu nahay Sool baanu nahay bay yiraahdeen baanu nidhi wax dambe ma hayno marka inaanu iska aamusnaana gudboon mar haddii Soomaaliland ay madaxweyne kasta noo dhaqaajinayn inaanu iska aamusno baanu fiican laakiin yeelkeeda dadku waa dad islaama warbal dadka abaartu haysatay soo qaxay meel walba ka yimi hal soo caawiyo haddii calaf tahay iyo haddii ay tahay biyaha la soo caawiyo horena waan uga hadalay haddana waa ka hadlaynaa waxa weeye ceelku waa laba ceel mid ceelka biyaha leh solar baa noo saaran ceelka biyaha yarna motorka noo saaran ceelkii biyaha lahaa solarkaasi haddii labada qaboono adigu 5 saac oo maalinimo noo shaqeeyaa waxaana laga yaabaa ceelka biyaha yari habeenkii booyada inuu 1 saac afartaqaada inuu 1 saac iyo bar ku dhaamiyo booyadahana maantii dhaweydee waftidu noo timi waa la arkay intay faraleekaayeen halaaqada joogta ee booyada ku dhaansata iyo geela saaran intay leeyihiin waa la arkay waxa laga yaabaa maalintiina ilaa 2000 iyo dheeraad halaad inay isugu timaado habeenkiina kadaalig marka sida darteed uu anfici waayay ceelkii motorku saaraa waxaan u baahanahay oo baahidayada koobaad ay tahay oo aanu ka hadlaynaa waa motor si degdega in loo helo odayaasha degmada Awrbogays oo shirkan qabsaday annana aanu keenay biyo deeqa oo uga keenay gobolka Sool biyahaas oo 40 lowdhan biyahaasi waa la qaybiyey si wanaagsan bay dadkii ugu qaybiyeen annagoo goobjooga waxay siiyeen dadkii soo guurtada ahaa annagu waxaanu nahay 2 xildhibaan oo ka tirsan degmada Xudun oo laga soo doortay
degmada Awrbogays waxaanu leenahay gudoomiyaha Cabdikariin Xaaji Diiriye halkan waxaa jooga dad degmo culus oo afarta garyaha isaga soo guurtay waxaanu leenahay waxay u baahan yihiin gurmad degdega iyo guddida abaaraha ee heer gobol iyo heer qaranba dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad waa baahan yihiin waa soo hayaameen waa dad wadan fog ka soo hayaameen waxaanu leenahay gudoomiye adaa midida daabkeeda haya degmadaasi degmada xudun way ka miisaan weynta miisaankeeda waad ku talagelaysaa biyaha si degdeg ah loo rabaa wiigan intuu dhammaan baa la rabaa warbixintoodii biyaha saas weeye 40 lowr ee loo qaybiyay dadkii soo guuray aan dadkii deegaanka ahaa waxba laga siin oo iyagana u gaadhay reerkii 10kii reer babooyad la siiyay waxaan leeyahay guddida abaaraha ee heer qaran iyo heer gobolba uu hogaaminayo heer gobol uu hogaaminayo Cabdikariin Xaaji Diiriye halkan waxa ay saaran laba degmo oo aad u culculus oo kala ah degmada Xudun iyo degmada Awrbogaysna waaxigeeda waxa ku nool dad aad u fara badan oo soo guurta oo ka yimi gobolada Soomaaliya oo dhan mudug ilaa Nugaal ilaa Cayn ka yimi dadkaas waa dad aad u baahaysan xoolahoodu waa jilicsan yihiin abaartaas waxa loo baahan yahay dadkaas in loo gargaaro oo biyahii hore way leekaan waayeen in biyo badan oo baaxadooda loogu talagalay in loo soo diro odayaashii waxgaradkiina hadalkoodii waad maqlayseen guddi gobol iyo guddi qaranba guddida heer qaran uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Maxamed Saylici waxaan leeyahay halkan markaad marayseen gobolada bariga heerka waad haysaa sida ay tahay ceelkan la yiraahdo Awrbogays waad ogeed matoorkiisii warbixintiisa gudoomiyuhu waa hayay ama madaxweyne ku-xigeenku waxaan leenahay ceelka warbixintiisii deegaanka reer Awrbogaysed aad bay wali kaaga sugayaan dadkiina xaggaaga soo wada eegayaan tolo goormaha matoorkii xagga ka imanayaba dadkii indhaha u soo wada jeedinayaan madaxweyne waxaan leeyahay matoorka ama gudoomiyaha guddida abaaraha ee heer qaran waa in matoorkaas si degdeg ah loo helo hadii ceelkaas istaago dadkaas waxaan u maleynayaa wax yar baa laga soo gaaraya waxaan leeyahay madaxweyne dadkaas aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin matoorka hal la soo gaaro baaxadda biyaha abaaraha ee la bixinayana Xudun iyo Awrbogays laba meelood oo isqaadi kara ma aha waa mid walba waxa loogu talagalayaa gaarkeeda waxa la bixinayaana waa in ay helaan wax aad u balan oo dadkii soo guurtada ahaa unba wixii hore ku filaadeen laba jeer baanu keenay marna 12 booyadood baanu keenay marna waxaanu keenay 40 booyadood waxaan leeyahay madaxweyne ama gudoomiye hal la soo gaaro meeshaas dadkaas aad bay u tabaalaysan yihiin aadna waa la isugu soo guuray asaasan kaga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidan Cabdullaahi Maxamed Kaashi TV-ga qaranka Soomaaliland Awrbogays